بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada janaalkeena Nambic Digital Market Solutions waa video kaleeto oo aan maanta ku sharxi doono program aad iyo aad u fiican oo runtii aan in muddo kooban aan ku jiro muddo isbuuc ah oo aad iyo aad u fiican oo aan ka helay marka waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago programkan waxaa la yiraahdaa shirkaddan waxaa la yiraahdaa Intelligence Prime Capital waxay ku taallaa dalka Canada shirkaddan waxay bixisaa robot ayay bixisaa robotkaas oo ku shaqeynayo Forex MT4 kaas oo si automatic ku sameynayo profit kugu sameynayo marka percentage boqolkiiba 97 ayuu robotkan accurate yahay oo si sax oo maaragtay si la hubo uu maaragtay profit uu ku sameynaa marka shirkaddan waxa ay tahay information dhameystiran ayaan rabaa inaan idinkaga dhameystiro faa'iidada laga helayo lacag inta laga sameyn karo shirkaddan maxay tahay imise muddo intay shaqeynaysay sidoo kale qaabkee la iskaga diiwaan galaa maxay tahay shuruudaha loo baahan yahay marka waxyaabahaas oo dhan ayaan video kusoo bandhigi doonaa marka videoga ilaa dhammaad dhamaystiro insha Allah haddii channelka ku cusub tahay soo dhawaaw subscribe noo saar si aa ula socotid wax walbo update oo aan soo dhignay channelka aad iyo aad u mahadsantahay shirkaddan Intelligence Prime Capital waa shirkad ku shaqeyso programkan Forex trading ayay sameysaa marka shirkaddan waxay leedahay robot ayay leedahay oo automatic kaas oo aad one time aad gadanayso robotkaas markaa gadatid kabacdi waad maal gashanaysaa markaa maal gashatid lacag ku shubanaysaa kadibna bishii wuxuu ku sameynaa percentage oo boqolkiiba 45 oo profit ah ayuu ku sameynaa without adigoona waxba aanan sameynin kaliya bas robotka ayaa one time gadanaysaa markaa gadatid kadibna forever ayaa sidaas ku isticmaalaysaa marka nala socdo insha Allah videoga dhameystiro si aa wax macluumaadka dhameystiran aad u hesho oo programka oo dhan dabcan bilowga ugu horeysa wuxuu ka hadlaa risk presentationkiisa haddii aan bilaabo wuxuu ka hadlaa riski guud ee uu leeyahay Forex trading iyo guud ahaan oo kale marka saa ognahay Forex waxay leedahay riski ay leedahay marka waxa waaye mar walbeetana waxa aan ay barnaamij walbeeto la maal gashanayba waxa fiican ma aragtay wax aad ka sabri karto wax walba dhici karo dunidan waxay ahayd waxaan dhici karin ma laha nafteenaba damaanad kuma jirto waqti walba dhiman karna marka wax walbeeto damaanad ma laha marka waxa waaye wax aad ka sabri karto maal gasho taas ayaa ma aragtay qaacidada mar walbeeta aan isticmaalno oo ah barnaamijyada aan soo gelino dhan wax walbeeto oo amal gashanayso lacag ku shubanayso wax aad ka sabri karto maal gasho sidaan ognahay Forex waa suuq ugu weyn maaliyadeed dunida ugu weyn waxaa lacag lagu kala wareejiyaa in ka badan 800 oo milyan US dollar ayaa daily lagu kala wareejiyaa marka waa suuq ugu weyn suuqyada trading ee dunida oo dhan ka jiro lacagaha qalaad lagu kala sarrifo iyo qiimaha iyo waxaas oo dhan lagu waxeeyo marka meeshaas lacagahaas la kala bedelayo dabcan waxay u baahan yihiin analysis fara badan signals fara badan ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin bahalkii marka robotkan wuxuu naga caawinaa waxaas oo dhan ayuu analysis gareynaa kabacdina wuxuu galaa lacagaha kuwa uu hubo oo ma aragtay profitka laga heli karo ayuu gadayaa markii ay qiimo fiican yeeshaan uu iska iibinaa marka meeshaas marka profit ayuu noo sameynaa oo boqolkiiba 97 ma aragtay la hubo in ma aragtay lagu guuleysanayo presentationku waxay ku sharxayaan Forex marketka siduu u sameysan yahay qaabku u sameysan yahay sida uu dooranaysa midka ugu wanaagsan noocyada uu kala baxo waxa kala jiro personal trading iyo waxa kala jiro copy trading iyo midkan AI analysis system waa midka anaga ay isticmaali doono oo shirkaddan Intelligence Prime Capital ay leedahay Intelligence Prime Capital waa shirkad ku taalo dalka Canada sida aan hore idinku sheegnayba shirkaddan waxay ka shaqeysaa digital
asset service ayay ka shaqeysaa. dabcan waa shirkad ka diiwaan gelsan dalka Canada. waxay khibrad u leedahay waxay leedahay dad khubaro badan oo ka shaqeeya oo muddo in ka badan dhowr iyo 10 sano majaalkan ku jira ayay leedahay. marka macluumaadkaas ayay ku wixinaa. sidoo kale Intelligence Prime Capital waa shirkad leh xarumo ku kala leh kumbaniyaal waaweyn ku kala leh in ka badan 10 wadan oo ay ka mid tahay United States, United Kingdom, sidoo kale Canada, Singapore, Hong Kong, Taiwan, China iyo Nigeria, iyo sidoo kale Cameroon iyo Ghana. Intelligence Prime Capital sida arkaysaan waa certificate-ka ay ka haysato dowladda Canada ay ka haysato waaye. xarunteeda sida arkaysaanba waxay ku taalaa Yonge Toronto ku taalaa Yonge Street Suite 1304 Toronto. sidoo kale shirkadani waxay leedahay waxay ka diiwaan gelsan tahay isa arkaysanaba Fintrack register search-geeda haddii laga raadiyo waa laga helayaa. waxaa koobi garaysanaysaa linkigaana la koobi garaynaa. marka waxaa la gelinaa sida arkaysaan waa shirkad registered ah dowladda Canada ayay ka diiwaan gelsan tahay. waxaa la diiwaan geliyay sanadka markuu ahaa 2021 bishii 6aad 15keedii. licensiga wuxuu ka dhacaa sida arkaysaanba 2024 bishii 6aad. baalki address-koodana waa kuwaana, telephone number-kooda waa kuwaana. maxay ka shaqeysaa activity-geeda waa foreign exchange dealing, money transferring iyo dealing in virtual currencies. ahamiyadda ay u dhisan tahay waa taasaa. sidoo kale certificate-ka ay ka heleen. sidoo kale US Digital Asset License ayaa haysataa. raggani waxa waaye Intelligence Prime Capital COO-geeda waa ninkan, CMO-geeda waa ninkan. waxay ku shaqeysaa programkan MT4 oo aan wada naqaano. MT4 dhammaantiin waan naqaano umaleynaa Forex MT4. okay, maxaan ku dooranay shirkadani IB oo loo soo gaabiyay Intelligence Prime Capital. waxay leedahay a wide variety of trading products ay leedahay oo kala duwan sida including commodities, forex, cryptocurrency and indicators. 24 saac ayay 7 maal 24 saac ayay market trend analysis ku sameysaa. waxay trade ku sameysaa international meta trade for platforming aan naqaano. waxay sidoo kale userskeeda ay siisaa analysis system-kan AI-ga with accurate of 97% saan idin sheegay. excellency customer service-keeda run ahaantii aad u fiican yihiin. mar walba loo xiriir si wacan ayay kugu soo jawaabayaan. real time market analysis. marka okay, meeshaas waxaa lagu sharxaa personal trading mode-ka. okay, muhiimadeena marka aan u imaano Intelligence Prime Capital waxay leedahay bot system ay leedahay oo robot la gadanayo. 3 qayb marka robotku uu kala baxaa. mid waxa waa smart bot oo subscription-kiisa one time aad bixinayso
oo $19 iyo 90 senti aad siisanayso. Brilliant Bot aa jiro asagana $39 iyo 90 senti aad siisanayso, iyo Genius Bot oo ah midka ugu fiican oo aniga aan gatay dadkan inta badan ay wada gateen, oo ah $99 iyo 90 senti. marka robotkan markaa gadatid lacagtii uu MT4 ka ayaa lacagta dhiganaysaa oo trade-ka ku sameynayay. Minimum-ka waa $100 markaad dhigato robotkana aad 100 ku gadato $99 iyo 90 senti, adiga waa iska $100 oo 10 senti kusoo noqonayso. marka wax shaqo aa qabanaysid ma laha, kaliya bas subax walba waad soo kacaysaa, waxaa arkaysaa trade-yada uu galay iyo profitka maalintaas aad samaysay ay arkaysaa. dabcan minimum-ka lacagta ugu yara la maal gashan karo waa $100 iyo ilaa intaa rabto $10,000, $1,000, $2,000, $5,000, $100,000 intaa rabtaa maal gashan kartaa. dabcan ninka $100 maal gashto iyo ninka oo $1,000 maal gashto dabcan isku faa'iido ma filan karaan, maxaa yeelay qof walba wuxuu maal gashado ayuu faa'iidadeeda uu helayaa. marka it depends waxay ku xiran tahay lacagta aad maal gashato. marka laakiin midka ugu fiican oo ah in la iibsado waa midka Genius Bot-ka ah. asaga ayaana resultiga saxda ugu fiican ku siinayo. okay, meeshan waxaa laga hadlayaa siduu efficiency u yahay Intelligence Prime Capital Bot-keeda ayaa lagu sharxayaa. okay, saa idin sheegaba botka systemka subscription-kiisa mid waa 19, midna waa 39, midna waa 99. midka 19-ka profit waxaa filan kartaa boqolkiiba 15 ayaa bishii ku xisaabtami kartaa wixii aad maal gashato. minimum deposit-kiisa waxa waaye $100, maximum-kiisana waxa waaye $300. midka kale ku xiga asagana boqolkiiba 30 ayuu ku siinaa, minimum-kiisa waa $100, maximum-kiisana waa $1,000. 1 to 3 ayuu trade gelayaa. midka koowaad 1 ilaa 2 ayuu gelaa, midka labaadna 1 ilaa 3 ayuu gelaa, midka kalena 1 ilaa 4 ayuu gelayaa. Genius Bot-ka waa midka ugu trade-ka fiican, accuracy-kiisana waa midka ugu fiican ee accurate-ka ugu fiican ku siinayo. marka boqolkiiba 45 ayaa bishii aad ku xisaabtamaysaa oo faa'iido ah. okay, sidoo kale robotka saan sheegnay markaa iibsatid lacagtaas aad robotka ku iibsatay one time ayaa lacagta bixinaysaa. tusaale ahaan oo kaleento waxaa iibsatay Genius-ka iibsatay. Genius-ka markaa iibsato one time bas lacagta bixinaysaa, mar dambe lacag dama ma bixinaysid. laakiin waxaa jiro lacag kale oo waxaa jiro dabcan qofka lacagtuu deposit garaysto shirkadda waxay ku leedahay boqolkiiba 20 oo faa'iido ay shirkadda ku leedahay. marka tusaale ahaan oo kale haddii bishaas ay kuu soo baxdo $100 oo kale haddii kuu soo baxdo bishaas $20 shirkadda iska leh, $80 adiga ayaa iska leh. marka meeshan waxay ku sharxayaan AI Bot System Security Deposit-ka. marka tusaale ahaan oo kale qofka haddii oo uu $100 maal gashado, boqolkiiba 80 aad deposit garaysatay capital account-kaaga ayay ahaanaysaa, boqolkiiba 20 kaleentana robotka ayaa qaadanayo, botka oo ayaga ahaan shirkadda ayaa qaadanayo. haddii dabcan boqolkaas intaad tusaale ahaan geliso markiiba aad dhahdo waa la baxaa, waxay kaa qaadayaan $20 oo ganax. haddii kalena kida faa'iidada wixii soo baxo, haddii masalan $1,000 ay soo baxdo kale $200 ayay shirkadda ku leedahay, boqolkiiba 20 waxay noqonaysaa $200 ayay shirkadda ku leedahay. marka sidaas u ogaada. sidoo kale bonuses oo shirkadda ayadana ay bixisa ayaa jirto. qofka markii aad isdiiwaan geliso oo aad ka mid noqoto macaamiisha oo Intelligence Prime Capital aad ka mid noqoto, shirkadda waxay ku siinaysaa referral link
oo number ay ku siinaysaa oo qof shirkadda asagoona qof kaleento kusoo gelin isma diiwaan gelin karo. laazim waxaa waaye qof oo hore shirkadda ugu jiray in uu linkigiisa ku siiyo kadibna sidaas ama numberkiisa uu ku siiyo serial numberkiisa hoose uu ku siiyo. waan isla arki doonaa. ma ahana si kale shirkadda uguma biiri kartid. marka shirkadda bonuses ayaa jirta oo ah ay bixinayso maadaama shirkadda ay ugu talagashay dadka macmiisheeda kaliya bas le dadkay keenaan kaliya bas in ay macmiil u arkaan oo qof dibadda ka imaaday oo aanan wadanin referral link ama aan wadanin number aanan wadanin oo number hore macmiil hore aanan wadanin shirkadda ma iska diiwaan gelin karo. waxay ka mid tahay registrationka markaad samaynayso waxyaabaha laazimka ay ka mid tahay. marka shirkadda qof walba oo linkigaaga isku diiwaan geliyo hadda asxaabtaada aad siiso linkigaaga oo asxaabtaada is diiwaan geliso robitkaas ay gadato $100 boqolkiiba 10 ayay shirkadda ku siinaysaa. marka meeshaas $9 iyo 90 senti ayaad ku helaysaa haddii aad qof keento. sidoo kale sponsorship bonus waxa yiraahdaa jirto oo shirkadda ay bixiso ah dadka aad keento haddii ay bixiyaan ay deposit gareeyaan $1,000 oo kale boqolkiiba 10 ayay ku siinaysaa shirkadda oo u dhigmato $100. dabcan levelya ayay kala leedahay management bonuseska. sidoo kale qofka markuu bilowga hore yahay leader waaye rankiga. marka dambe qofka markuu dad badan keeno supervisor ayuu noqonaa, senior manager uu noqonaa, department manager uu noqonaa, regional manager uu noqonaa, management director uu noqonaa. kadibna meesha ugu sareysa waxaa waaye shareholder director inaad noqoto. shirkadda hadafkeeda waxa uu yahay in maxay ahayd markii aad shirkadda adiga ka mid noqoto dadka kaleento adiga dhankaaga ka imaado levelkaagana kor ayuu u kacayaa. sidoo kaleentana lacagaha ay deposit gareystaan ayaga lagama jaraayo laakiin shirkadda ayaa bonus ahaan adiga extra ahaan ayaga jeebkooda inta ka bixiyaan aday ahaan ku siinayo. marka meeshaas ayadana faa'iido kale waaye ay ku leeyihiin shirkadda oo aad ka faa'iidi karto haddii aad maaragtay waxayso waxyaabahaas ay inta ay ku sharxayaan. tusaale ahaan oo kaleento waxay ka hadlayaan qofka haddii levelkaaga masalan haddii uu gaaro ilaa 20 qofood oo kaleento in aa waxayso waxay ku siinayaan bonuses kaleento qofka lacagta uu maal gashado faa'iidada uu helo laftirkeeda ayay boqolkiiba 30 iyo boqolkiiba levelyada marka kale ah boqolkiiba 30 boqolkiiba 20 boqolkiiba 5 mar walba levelka uu sii kaco boqolkiiba 30 uu ka bilaabma. level 1 oo kaleento waa boqolkiiba 30, level 2 oo kale boqolkiiba 20, level 3 oo kale boqolkiiba 10 ilaa level laga gaaro 15. marka qaabkaas ayuu u samaysan yahay. sidoo kale presentationka hadartina si akhristaan waa soo dalban kartaan waa idin soo diraya qofka u baahan inuu maaragtay si akhristo. okay waxaan tegaynaa marka shirkaddiyaan tegaynaa waa ka account-keygii waaye oo Intelligence Prime Capital website-koodiyaan ku jiraa. meeshaan aad arkaysaan oo buluug ah waxa waaye waa walletka main account-ka ah waaye oo lacagaha faa'iidadan ay ku soo dhacayso. sidoo kale lacagta markaad deposit gareysata meesha ay ku soo dhacayso halkan waaye. faa'iidadana shirkadda midka cagaarka ah waxa waaye waa midka oo MT4 oo trading-ka sameynaa lacagta oo trade-ka lagu sameynaa waaye. midda kale oo ka sareysana waxa waaye lacagta faa'iidadana meeshaas ku soo dhacaysa. sidoo kale lacagtaasna waa lacagta aad mar walba la bixi karto. haddii tusaale ahaan oo kale waxay ugu talagaleen robotka maadaama uu isbuucii 5 maalmood uu shaqeynaa 2 maalmood oo sabtida iyo axadana lacagaha ku jiro MT4-ka wax dhan ayaad hadarta aad kala soo bixi kartaa macala lafahaaga wixii lacagta ku shaqeynaysay. maalmaha kaleento laguma ogol 5 bari si waxa la diidaa robotka uu interruption iyo waxaas inaad ku samayso aad interrupt gareyso. marka si aad xoriyadiisa loo siiyo robotka inuu lacagtaas oo capitalkaaga ah si uu kugu shaqeeyo 5taas maalin inta wixii lacag ku jirto iyo faa'iido la bixi karo. maalinta jimcaha markii la gaaro oo saacada isbedesho maalinta sabtida ay ku sii socoto lacagaha faa'iidado dhan waxa loo soo wareejinaa account-kan kale oo buluug ah loo soo wareejinaa. midkan cagaarka ah waxa ku haraya kaliya lacagtii
aad markii hore inta dib oo u deposit gareysatay oo aad gelisay MT4 ka aad gelisay bilowga u horeysay aad gelisay haddii aad rabtid marka midaan kale oo qaanadan kale oo buluugta ah oo ah walletkaaga oo USDT ga lacagta na aad kala baxaysa faa'iidada iyo wax dhan aad hadhow ku shubanayso account-nadaada exchange-yada sida Binance ama KuCoin exchange oo aan isticmaalo iyo shirkadaha exchange-yada kale ee kala duwan midkaad adiga doorato aad isticmaashaba si aad lacagtaada ugu xawilatid meeshaas ayaad kala baxaysaa midkaas calaamadaas buluugta ayaad kala baxaysaa okay markii qaabka oo sign up ka loo sameynayo waa idin tusi doonaa marka aad sign up samayso halkan meeshan qaybtan subscription ka ayaad imaanaysaa subscription ka imaanaysaa subscription ka saa arkaysaanba saddex ayuu u kala baxaa robotyada aad kala gadanayso robotka koobaad saa arkaysaanba Brilliant bot waxaa ku jiro dad gaarayo 520 qofood ayaa maal gashatay lacagta ku jirtana waxay gaaraysaa 127,154 $1.73 centi Genius bot-ka oo ah midka anaga aan galno midka ugu fiican ah oo faa'iido ugu badan bixinayo waxaa ku jiro 41,647 qofooda ku jiro lacag waxaa la geliyay oo uu account-kaas oo robot-kaas oo Genius-ka ah uu trade gareynayaa dadkaas 41,647 qofood ah waxay gashadeen lacag gaaraysa 46,982,303 $47 centi saa idin sheegay return on investment faa'iidada ka soo baxayso robotkan Genius-ka waa 45% minimum-ka ugu hooseeya wuu ka badan karaa haddii tusaale ahaan oo kale $1,000 oo kale kaba soo qaad haddaan maal gashano oo 45 aan ku dhufano waxaa soo baxaysa 450 ilaa 500 inuu gaara laga yaabaa laakiin minimum-ka meesha aad ku xisaabtamayso oo la hubo robotka waxa waaye 45 boqolkiiba inuu soo saarayo minimum-ka lacagta ugu yaree la maal gashan karo waa $100 subscription-kana waa $100 saa arkaysaan marka u horeyso isdiiwaan gelinaysa 100 subscription ah iyo 100 waxaa ku xisaabtamaysaa oo minimum-ka ah haddii kale oo aad rabto inaad faa'iido badan hesho $100 faa'iidada laga heli karo aniga $100 aan geliyo faa'iidada laga heli karo waa idin tusayaa sidoo kale smart bot-ka asagana waxaa flow gareeyay 400 iyo 11 qofooda ma flow gareysay waxaa la geliyay lacag gaaraysa 53,000 ayuu flow gareynayaa asagana uu trade ku sameynayo 53,000 iyo $5.93 centi minimum-kiisa kulli saddexdaba waxay ka wada sameeyeen yihiin lacagaha la maal gashanayo kulli dhamaantooda $100 ayaa u yar oo la gelin karaa intaas waa isla fahanay okay haddaba marka account-kan sidee la iskaga diiwaan gelinaa okay qaybta linkiga description-ka ayaan idin dhigay linkiga aad ku dhufanaysaan oo iska diiwaan gelinaysaan marka hore isdiiwaan gelinaysaan marka meeshaas hore asaga ayaa buuxiyay oo linkiga qofkii ku keenay laazim waa qof referral inuu jiro marka meeshaas ayada wax ma ka bedeli kartid meeshaan email-ka gelinaysaa meeshaan magacaaga u dambeeyo oo sida baasaboorkaaga u qoran yahay because waxaa laga rabaa baasaboorkaaga ayaa laga rabaa in aad geliso ama leasing oo kale leasing baabuur oo kale ayaa wax adiga oo official government ah sida baasaboor oo kale ugu fiican hadda baasaboor ah haysato hadda baasaboor la'aan tahay iskama diiwaan gelin kartid laakiin leasingka baabuurka oo kale waxa laga yaabaa in ay qaadanayaan laakiin aniga kuma baroon laakiin baasaboor aan geliyay laakiin boqolkiiba 99 waxay u baahan yihiin baasaboor haddana haysan leasingka baabuurka oo kale inta hadda ku dayid inay ku soo aqbalaan laga yaabaa okay last name-kaaga siduu baasaboorka ugu qoran yahay first name-kaaga magacaaga koobaad date of birth-ga waqtigaa dhalatay halkan genderka haddaa nin tahay haddaa naag tahay gelinay telephone number-kaaga gelinaysaa meeshaas home phone-ka waa iskaga tegaysaa nationality-ga
ayaad ku dhufanaysaa, wadankaaga raadinaysaa, Soomaaliya waa ka helaysaa ama wadanka markaas aad baasaboorka ka haysato whatever wadanku noqdo, meeshaas baasaboorka gelinaysaa. halkaana sendi code ayaa leedahay, emailka aad isku diiwaan gelisay koodkiisa ayaad sendi code markaad taabato code ayay kusoo diraan, emailkaaga tagaysaa, koodka ayaad kasoo qaadanaysaa, emailka furaysaa, kadibna koodka halkaana gelinaysaa. meeshaana waxaa leedahay I have read and agree ayaa leedahay termska iyo wax dhan, kadibna sign up aad leedahay. markii intaas aad dhamayso oo bayaanaadkaaga aad geliso, dabcan wuxuu ku weydiin doonaa in aad baasaboorkaaga aad geliso. baasaboorkaaga meel ayuu ku banaynaa, meesha ayaa baasaboorkaaga gelinaysaa. laba sawir ayuu kaa rabaa, mid waa baasaboorka wejigiisa koowaad oo ugu horeeyo, midka kalena waa dhabarka kore. markii baasaboorka la isku laabo, dhabarka kore baasaboorka oo cadaynaysa macnaha sawirka calaamada wadanka iyo wadanku baasaboorka yahay iyo coverkiisa ayaa sidoo kaleento ama googlaha kala soo degaysaa. Soomaali baasaboor oo kale hada ku qorto googlaha waa kasoo dhaxelaysaa coverkiisa. coverka kore ayaa adiga ama taleefankaaga screenshot inta ka qaado geli, adiga sawir waxa laga rabaa un coverkaas ay yimid. waxa laga rabaa baasaboorka gudihiisa ah oo bayaanaadkaaga iyo magacaaga iyo sawirkaaga wax dhan uu ku dhagan yahay. intaas markaa gelisay kadib muddo 24 saacadood ayay qaadanaysaa. 24 saacadood kadibna account-kaaga waa la soo aqbalayaa. sidoo kale waxaa lagu soo diraa username iyo password oo waxaa lagu soo dirayaa oo account-kaaga MT4-ka username iyo password lagu soo diraa. username-kaas iyo password-kaas ayaad gelinaysaa, kadibna sidaas ayaad robotkii ugu ogolaatay inay shaqadii uu bilaabo. waxaa kaloo marka laga rabaa wixii markaas intaas ka dambeeyo, waxaad imaanaysaa qaybta transaction-ka imaanaysaa, funding ayaa dalbanaysaa. funding markaad dalbato lacagta waxaad laba shay ayaa kala jiro, TRC20 iyo oo ah lacagtan USDT tetherka ah ama Bitcoin. labadaas mid ayaa dooranaysaa. Bitcoin-ka kala transaction-kiisa aad qaali u ah, waxa laga yaabaa lacagta aad soo xawilayso intay doontaba ha ahaatee in transaction ahaan Bitcoin-ka lagaga qaado shirkadaha aad ka soo xawilayso $20 iyo $2 in laga qaado ama ka badan. marka waxaan kugula talinaa in aad doorato TRC20 oo USDT ah. lacagtaas transaction ahaan waxaa laga qaadaa $1. kadib markaa calaamadaas korka kore ay saaran tahay aad doorato, waxaa copy garaysanaysaa wallet address-kana copy garaysanaysaa. markaa copy garaysato waxaad tegaysaa manasada markaas aad ku jirto kaleento. ana hadda dabcan waxaa isticmaalaa KuCoin isticmaalaa. marka KuCoin waa manaso aad u fiican oo maxay ahayd si easily aad iskaga diiwaan gelin kartid. waxay ku fiican tahay haddii xataa even aadan baasaboor u baahnayn, aadan haysan baasaboor la'aan, waa iska diiwaan gelin kartaa. lacagna waa ku xawilin kartaa, waana ku dirsan kartaa. okay, kabacdi withdrawgaad dooranaysaa, lacagta USDT aad dooranaysaa. USDT markaad doorato waxaa leedahay I understand. kadibna waxaa ku paste garaynaysaa address-ka soo waxaysay. saa arkaysaan KuCoin-ka waxyaabo ku fiican yahay kamid tahay network markiiba asaga ku dooraayo. network aad lacagta ku soo dirayso waa inay ahaato TRC20 oo Tron ah blockchain-keeda. kadibna halkan waxaa gelinaysaa lacagta aad rabtid inaad u dirtid, tusaale ahaan $100 ama $1000 oo kale, ama $250 ama $200. minimum-ka u hooseeya oo soo diri karto waxaa waa $200. $100 oo aad ku iibsanayso robotka iyo $100 oo aad gelinayso deposit-ka aad gelinayso. halkaana waxaa ku qoraysaa magaca shirkadaad u xawilaysid whatever IB capital haddaad iskaga qoraysaa muhiim aha. kadibna confirm ayaa leedahay. saas qaabkaas ayaa lacagta ugu soo diraysaa. okay, account-kayga marka hadda MT4-ka ayaan tegaynaa. MT4-ka saa arkaysaan muddo isbuuc camal ayuu shaqaynayaa. isbuuc ayuu shaqaynayaa, isbuuc xataa ma dhamo, laakiin isbuuc wax yar ka dhiman. sida arkaysaan taariikhyada maanta oo kale hadda
shalay oo kale maanta oo kale taariikhda u dambeysay 4 bisha wuxuu galay 3 trade uu galay koodii bisha afraad 3 xabay u dambeyso $1 iyo waxay u dhigantaa 80 senti marka accountkaas marka dib waxaan deposit garay $109 marka wuxuu sameeyay $6 iyo 74 sidoo kale waxyaabaha ilo waxaa ka mid ah lacag markaa rabtay inaad website-ka kala baxdid account-ka markaa rabtay inaad lacag kala baxdid minimum-ka lacagta lagala bixi karo $10 waaye marka haddii faa'iidadaada ay $10 gaarto account-kaagana oo meeshaan qaybtan ay $10 kugu jirto waa la bixi kartaa meeshaan qaybtan buluuga ah oo hadda 2.8 ay saaran tahay haddii $10 ay gaarsan tahay waa la bixi kartaa immediately markiiba wallet-kaaga ayaad gelinaysaa oo withdrawal-ka ee qaybta funding-ga tagaysaa transaction withdrawal aad dhehaysaa withdraw markaad dhahdo lacagta aad rabtay inaad dirsatid ayaa gelinaysaa kadibna wallet-kaaga ayaad gelinaysaa oo marka hore inta aad iska soo diiwaan gelinaysid kadibna send code-kaas ayaad gelinaysaa email ayuu kuusoo dilaa verification soo u hubiyo qofkiina adiga tahay sidoo kale inta google education-kan ayuu code-kan ayuu googlaha ayuu ka rabaa waxaa laga soo download gareysan karaa Google Play Store-ka haddaa rabtidna qofka rabana wuu iska dhaafi karaa laakiin for security-ga ay u fiican tahay in aad samaysatid code-kaas si macnaha qof aan adiga ahayn oo telefonkan ahayn iyo location-ka inuusan qof aan adiga ahayn uusan oola bixin lacagta oo for security reason ay u fiican tahay waxaan filaa videogan inuu dheeraaday marka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wixii su-aalo aa qabtaan qaybta WhatsApp numberka ayaa idin reebina insha Allah WhatsAppka ayna la soo xiriiri kartaa wixii su-aalo aa qabtaan oo dhammaan aan idinkaga jawaabi doono insha Allah iyo caawinaad wixii aa u baahan tihiin videogan intaasaan kusoo koobaynaa insha Allah channelkana subscribe saaro si aa oo la socoto wax walba oo update ah oo aan website-ka aan soo gelino aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh